qaar ka mid ah gaadiidleyda yaryar ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay cashuuro lagu soo rogay oo ay sheegeen inay dawladdu dabada ka riixayso isla markaasna loo sameystay isbaarooyin lagu qabqabanayo. Gaadiidleyda ayaa carabka ku dhuftay inaanay awoodin cashuurahaasi, waxaanay ku baaqeen in cashuurahaasi la joojiyo. cashuuraha lagu soo rogay ee waliba gaadiidleyda tagaasida lagu soo rogay waa arrin qalada taasi oo gawaarideedu ay ka mid tahay gawaarida magaalada jooga aanan ahayn dad shirkada ah oo meel gaar ah istaaga. waxa dhacday in gaarigeeyo cashuuran la weydiiyo cashuur labaad sidoo kalena meelo fara badan la weydiiyo cashuur noocaas ah sida kantaroolada markan magaalada ka baxayo kale markaan weydiina lagu yiraahdo waa tirkoobki gawaarida dadna la jaro warqad rasiid oo ay ku qoran tahay dawladda hoose kabacdi markaan magaalada ku soo noqdo haddana jid kale la istaago lagu yiraahdo cashuur baa lagu weydiinayaa markaan ku yiraahdo way igu dhijisan tahayna lagu yiraahdo tugaara oo tagaastaa weeyaan sidoo nagu hayaan waxa kamid ah magaaladu iska bilaa camala oo qofkii ardaynimo ku eriyanayo ama qof xaasleeyo yahay ayaa la weydiinayaa lacag saayida taas dastuurku wuxuu damaanad qaaday cashuurtina waan iska bixinay walibana sidoo kale xaq waxaan ugu leenahay ayaan ku nir dawladda hoose inay naga dhisto wadooyinka magaalada Hargeysa. waxaad ogtiin baahiyo fara badan oo ay bulshadu qabto waxa kafeeya oo dawladda hoose waajib ku ahaa waxa kafeeya dad shacab midalan dambeyn waxaan soo jeedinayaa in laga daayo masaakiinta tacadiga loo geysanayo ee laga qaaday lacagan dastuurka ku qornayn taasi oo aanu aragna lacag baadila. geesta kale waxaanu wax ka weydiinay cashuurahaasi lagu soo rogay gaadiidleyda yaryar waxa uu ka qabay sharcigu garyaqaan Cabdirasaaq Saabir oo kamid ah garyaqaanada Soomaaliland waxaana kamid ah hadaladiisii waxa la oran karaa wixii uu maxay heeday xeer baarlamaan ama dastuur xeer u jideeyaa la cashuur waxaan arkay muxuu ahaa qoladan muxuu ahaa gaadiidleyda fitista oo ka cabanaysay lacag qeyr sharci oo laga qaaday 200 kun oo ay sheegeen sanadkii horena saas kale lagu sameeyay lacagtaasi wax maxay ahayd xeer oo jideeyay cashuurta oo laga qaado baabuurtaas ma jirto waana qeyr sharci waa lacag lagu qaadanaya sifo qeyr sharci ah oo waana sharci daro waxaana sharci darrada cadeynaya dastuurka qodobka 14aad oo sheegaya farqadiisa koowaad oo sheegaya waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliifa waxa loo eegaya danta iyo maslaxada bulshada. cashuur ama takaaliif aan xeer jidin lama qaadi karo waa cashuurtaas waa qeyr dastuur waa xeerna kuma saleysna runtii waxa weeyii maxay heeday waa dulmi lagu kacay taadi iyo maxay heeday ku takrifad awood xilaad oo ay dawladda hoose u geysanayso maxay heeday masaakiinta ay gaadiidka ka ganacsanaysa gaadiidka dilawrinta ka marka waxaan leenahay waxa u banaan ee xalku noqonaya in maxkamadda dastuuriga ay hay'adda dawladda hoose ka soo dacweeyaan si waxa laga qaadayo maxay heeday looga joojiyo waayo wadanku wuxuu leeyahay maxkamad ka garnaqda wixii qeyr sharci qof laga qaadayo sidoo kalena bir hore waxa ku dhacday wasaaradda gaadiidka ayaa maxay ku soo rogtay wareegto qeyr sharci oo leedahay kuma kala digreeto qeyr sharci oo leedahay uma kala wareegi kartaan digreeto wasiir gobolada ma kala bixi kartaan runtii waan la taliyay bariga qareenkoogii baan waan u xareynay maxkamaddu sarena way ka diiday maxay wasaaraddu wareegtadii qeyr sharciga ahayd sidaas ayaanay imka maxay gobolada ugu kala geeshaan marka waxaan leenahay oo aan kula talinayaa dacwooda oo maxkamadda sare u dacwooda maxkamadda dastuuriga lacagahaana ha bixinna waa lacag qeyr sharciya meel alla meel ay ku dhacayso iyo cid sharci jideeyay ma jiro jeebad qof in awood xilad wax loogu shubaana waa qeyr sharci waa inay meel ku jideysnaataa. cashuuraha bulshada laga qaadanaya waxa dejiyay qaanuun cashuur aan qaanuun xeer dejin sida imka baarlamaanka cashuur aan dejin oo xeer ku dejin iyo takaaliif yani taariifadaan ku soo saarin sanadka lagama qaadi karo. cashuur waxa la oran karaa wixii xeer jideeyo oo baarlamaanku maxay jideeyo ama taariifad ama takaaliif ay soo rogaan baarlamaanku inta wixii ka soo hadhay wax cashuur lama oran karo waxa weeye waa lacag sifo qeyr sharci loo guranayo oo looga qaaday waliba ku takrifad awood xilaad lagaga qaaday dadka masaakiinta ah. Axmed Nuur Ciise, Telefishinka Bulsho, Hargeysa.